kulanti wanaagsan dadkana daawanaya oo ku soo dhawaada warka BSTV waxaan idin la socodsiinay anigoo Salmaan Joker qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaare Khayr oo Muqdisho kulan kula qaatay ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Mareykanka ciidamada xoogga dalka ee Danam oo la wareegay degmada Awdiigle musharaxay wadata dawladda Qatar ee doorashada Jubbaland oo la shaaciyay akhbaaraadka caalamka ee warkeena waxaa kamid ah madaxweynaha Mareykanka oo soo jeeday in la toogto ragga kaysta dil wadareedyada intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu door corona haatan ku soo dhawaada qodobadaasi qodobo kale oo xiiso leh Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayr ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee dhanka siyaasadda David Hale oo Muqdisho soo gaaray kulankan ay wada qaateen Ra'iisul Wasaaraha iyo ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa looga hadlayay cafinta la dagaalanka argagixisada iyo dhismaha ciidamada qaranka Soomaaliyeed David Hale dawladda ku amaanay dadaalada horumarinta dalka ayaa Ra'iisul Wasaare Khayr ugu mahadceliyay soo dhaweynta ballaaran Ra'iisul Wasaare Khayr iyo ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa kulankooda sidoo kale iskula soo hadal qaaday kaalinta Mareykanku ka geysanayo dadaalada dib u kabashada qaranka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya ayaa iyo dawladaha Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa waxa ka dhaxeeya xiriir qoto dheer oo soo jireen ah oo ku dhisan horumarinta danaha labada dal iyo labada shacab ciidamada xoogga dalka sida gaarka u tababaran ee Danam ayaa al-shabaab kala wareegay degmada Awdiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose sida ay qortay wakaalada wararka ee Soona kii ay ka saareen dagaalmayaasha al-shabaab degmada Awdiigle ayaa qiyaastii 70 kiiloomitir dhanka koonfur galbeed ka xigta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waa degmo caan ku ah beeraha iyo dalagyada kala duwan sida qudaarta noocyada kala duwan Awdiigle dhowr jeer ay isku bedeshay gacan ku haynteeda iyadoo al-shabaab ay maamulayeen degmadaasi 4 sano ee la soo dhaafay kadib howlgaladii 2012 iyo 2016 ciidamada xoogga dalka kula wareegeen gobolka Shabeellaha Hoose sanadkii 2016 ayaa ciidamada Mareykanka ay kuwa Danam ay weerar cirka iyo dhulka ku qaadeen degmadaasi waxaana ay sidoo jira u weerareen saldhigyo dhowr oo al-shabaab ay kula hayeen degmadaasi wargeyska laga leeyahay dalka Qatar ayaa baahiyay xog ku saabsan dawladda Qatar ay wadato mid ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland dawladda Qatar ayaa la sheegay in ay ka soo horjeedo madaxweynaha hadda maamula Jubbaland Axmed Madoobe Qatar Lex waxa uu baahiyay in dawladda Qatar ay taageersantay musharax Cabdinaasir Seraar kaasoo Axmed Madoobe ay wada hogaamin jireen ururkii Ras Kamboni Seraar oo horay xubin uga ahaa kooxda Ras Kamboni al-shabaab ka riday gobolka ayaa waxaa la sheegay inuu taageero dhaqaale ka helayo dawladda Qatar oo u soo marsiinaysa ku-xigeenka madaxa sirdoonka ee amniga qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin madaxweynaha Mareykanka ayaa wuxuu si aad ugu cambaarayay laba dhacdo oo ka kala dhacday gobolada Texas iyo Ohio kuwaas oo wadar ahaan lagu qaarijiyay ku dhawaad 30 ruux badi dadkaasi oo la laayay isbuucan ayaa ahaa kuwa ajaanib ah inkastoo ay ku jireen tiro kale oo Amerikaan ah sida ay sheegaan mas'uuliyiinta wadankaasi sida ay tibaaxayaan baaritaano hordhaca labada shakhsi ee falkaasi ka dambeeyay waxay ahaayeen rag cadaan ah Donald Trump oo wariyaasha la hadlay ayaa cod dheer ku qeexay wax la aqbali karo aysan ahayn cunsuriyad iyo isla weynida cadaanimo asay ku soo gabagabeeyna war wixii dalka iyo dibadda laga soo gaaray tan iyo war noocan oo kale intaan ku kulmi doono waxaan inaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo Wararka